سنة لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان dadka Soomaaliya barnaamijka gufaaco ka dhageysanaya Radio Borame kana daawanaya Somali Canadian TV waxa halkan baaq soo gaarsiiyay culimada aqoon-yahanada salaadiinta dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ee ka soo jeeda beesha Gadabuusi ee degan gobolka Awdal, Salal iyo Gabilan. baaqan oo ku saabsan waxa ka hadlay magaalada Muqdisho odayaal isku yeeray dir isla markaana iclaamiyay in ay ku qabanayaan shir magaalada Borame ee gobolka Awdal. ummadda barnaamijka meel walba ka daawanaysa. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi xadiiskii Anas bin Malik unsur akhaaka daaliman oo madluuman, walaalkaa lababa u gargaar markuu gardaran yahay gardarrada ka qabo ummadda uu gardaro ku sameynayo, marka uu hiilo u baahan yahayna oo gardarradaas iyo xaqdarrada iyo dulmiga in looga hiiliyo u baahdo u gargaar. haddaba ummadda barnaamijka meel walba ka daawanaysa gobolka Awdal, Salal iyo Gabilay waxay ku suntan yihiin midnimadii ummadda Soomaaliyeed. waxaa jira xiriir ka dhexeeya beelahaas degaanadaas oo ah USP oo xiriirkaasi uu yahay dhulbahante warsangari Gadabuusi oo ah xiriir soo jireen ah isla markaana uu yahay xiriir siyaasadeed. dadka ummadda Ilaahay abuuray qabiil walba way leedahay, deel iyo daarood iyo hawiye iyo cid walba Ilaahay ba abuuray. Ilaahay agtiisana waxa lagu kala sharaf badan yahay oo lagu kala qiimo badan yahay taqwada Ilaahay. haddaba bayaankan ay soo direen aqoon-yahanada iyo culimada iyo waxgaradka beesha Gadabuusi dalka gudihiisa iyo dibadiisu waxa uu qoran yahay. annagu waxaanu nahay magaalada Borame meel ku suntan midnimadii ummadda Soomaaliyeed. cid walka oo Soomaaliyeed oo qabiilada Soomaaliyeedna ay degan tahay xaqna u leedahay inay degto. dadka Soomaaliyeedna aanan qabiil aanaanu aqoon, jaamacadaha iyaga ardayda ku jirtana sidaasoo kale ay yihiin. haddaba qolada ku baaqay shirka magaalada Muqdisho ee dir waxay uga digayaan in beeshani tahay beel midnimo, beel ummad Soomaaliyeed qabiil walba ah mid ay soo dhaweynayaan, isla markaana ay tahay mid ummadda Soomaaliyeed u siman tahay magaalada Borame iyo hareeraheega. haddaba dadka barnaamijka daawanaya baaqan waxay ogeysiinayaan oo u sheegayaan war shalay labada beelood ee wada dhalanay ee ay tahay beesha Ciise iyo beesha Isaaq markay amxaarada u soo kaxaysteen magaalada Borame iyo hareeraheega gobolka Awdal oo ay ku baabiiyeen dirku xaguu joogay, dirku muxuu ku maqnaa. maanta meel walaalkaa uu dulmi ku sameynayo oo ah inaad dulmiga ka qabato tira war dadku iyaga ismaamulayo faraha uga qaad, inaad xamar ka baaqdaan oo aad ku sheekaysaan dir baa shir ku qabsanaya Borame. waxaan idin leenahay fidnadiina hanala soo galina baa laydin yidhi. magaaladan Borame waa meelin suntan ummadda Soomaaliyeed u furan. dadka Soomaaliyeed weliba beesha dhulbaante xidhiir dheer oo siyaasadeed oo USP iyaga iyo warsangariga ay naga dhaxayso. haddaba idinku haddii aad dir ka hadlaysaan beelo fara badan oo dirtega way jiraan. meelaha waxaa ka mid ah Jabuuti, waxaa ka mid ah Hargeysa, meelahaba shirka ku qabsada ama Burco. laakiin magaalada Borame ood ogtihiin wixii dir ku sameeyey ood aragtaana sida ay tahay iyo ummadda Soomaaliyeed u jeceshahay inay sumcadda ka didshaan oo aad ceebaysaan inagama oggolaanayna. meeshiina ku ekaada. magaca ugaaska guud ee beesha Gadabuusi anoo xalay la hadlayna arrinta iyada wuxuu ku ogyahay ma jirto, raallina ugama aha beeshiisa isaga oo maanta nool yahay ugaaskii in rag ku baaqaan oo ay yidhaahdaan waxaan ku qabsanaynaa shir magaalada Borame ana weliba degaankana ahayn, fidnana u socda. hadday khayr ka shaqaynayaan iyo islaaxu bayna annaas waa wax wanaagsan oo ajar wanaagsan lagu helayo. laakiin in halkaa lagaga dhawaaqo wixii la rabo magaaladana lanaga ceebeeyo. nimanka dir sheeganaya waxaan u sheegaynaa dir waanu naho nasab baanu ku nahay, laakiin dir la siyaasadayn karo caqli laga xadan karo ma nihine. idinku waxaad yeeshaan waxaas idinka idinku ekaado. dhammaan dadka barnaamijka gufaaco ka dhageysanaya Radio Borame aan Somali Canadian TV waanigoo Xaamid Cali Cilmiya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.